heestii dhoolatus iyo fanaanka Axmed Rasta guddiga anshaxa fanka Soomaaliyeed iyo xeer ilaalinta anshaxa fanka oo dacwad ku soo oogtay heestii tusmo ee fanaanka Axmed Rasta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. isku soo noqod wanaagsan iyo habeen kale oo xiiso leh iyo video cusub oo xiisihiisii gaarka xambaarsan. intii taqaan way taqaana intaan aqoonaan skiin baro waa Maxamed Xasan Abuukar, waxaana youtuber, waxaana gudoomiyaha anshaxa fanka Soomaaliyeed. aad baad u mahadsantiin. haddii aad ku cusubtahay youtube-kayga waxaan ku leeyahay please subscribe saar, like, share, comment ka bixi. waxaasoo dhanna ma ahan wax lacaga ee waa bilaash. fartaadoo keliya oo ku dhufatid like oo ku dhufatid subscribe oo commentigana ku qortid absolutely wax lacaga ma ahan, waa bilaash ama waa free. okay, hees cusub ee uu soo qaaday fanaanka Axmed Rasta, heestaas oo magaceeda la yiraahdo dhoolatus, ayaa waxaa soo qabtay oo soo dacweeyay xeer ilaalinta anshaxa fanka Soomaaliyeed oo aan anigu gudoomiyaha u ahay. qodobo badan ayaa heestaasi ay ku heestaan guddiga ama xeer ilaalinta anshaxa fanka Soomaaliyeed oo anigu aan u ahay gudoomiye. markii ay soo heleen guddiga xeer ilaalinta anshaxa fanka Soomaaliyeed oo dacwadii ku soo oogay heesta dhoolatus ee uu ku luqeynayo fanaanka Axmed Rasta oo aad u wada garanaysaan. okay, xeer ilaalinta qodobada ay fanaanka Axmed Rasta ay ku soo eedeeyeen heestiisii dhoolatus, qodobada dhowr ah ayay taabanaysaa. qodobka koowaad ee ay ku heestaan xeer ilaalinta anshaxa fanka Soomaaliyeed ila soo arka. warkaaguna dhowrsana sawtaadi sabiila ahayd dhamaystu maroon jeclaa, sawtaadi sabiila ahayd dhamaystu maroon jeclaa. waad soo aragteen xeer ilaalinta dacwadda ay ku soo oogeen heesta dhoolatus ee Axmed Rasta. weliba caddeemo hor leh ayay soo bandhigayaan oo waxay leeyihiin intaas kuma eka heesta qaladaadka ama dacwadda ka dhan ee heesta dhoolatus loo soo jeediyey. qaybteedii kale iyo qodobada ay ku sii eedeynayaan oo weli hor leh nala soo arka, maxaa yeelay waxaan rabnaa in aan ku xukunno xukun cadaaladda waafaqsan, maadaama xeer ilaalinta anshaxa fanka Soomaaliyeed ay soo eedeeyeen, ay soo dacweeyeen heesta dhoolatus. qodobkiisii labaad ama qodobka labaad ee ay ku dacweynayaan heesta dhoolatus, daawasho wacan. dambalkaagii wacnaa amiyugu dhagan maagana, jacaylkii dhaxalkahaa la dhowr weji buu lahaa. dambalkaagii wacnaa miyuu waad soo daawateen qodobka labaad ee xeer ilaalinta ku soo oogtay fanaanka Axmed Rasta iyo heestiisii cusub ee dhoolatus. horta heesta si aad u qurux badanaa loo soo agaasimay oo loo soo duubay. erayadeediina ma xuma, way iska fiican yihiin. muusigeediina ma xuma, aad buu u shidan yahay. balse fanaanka Axmed Rasta heestaasi wuxuu u isticmaali baa la leeyahay qodob ka baxsan fanka iyo hiddaha dhaqanka Soomaaliyeed. kadib markii uu soo ciyaarsiiyey ciyaaryahanad
ka baxsan fanka Soomaaliyeed oo ah gabar ciyaal xaafadeed ah. Okay, wuxuuna ku xadgudbay sharafka iyo hiddaha iyo fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed. Marka maadaama aan ahay gudoomiyaha anshaxa fanka, sidaan horey ugu caddeeyeyba, laga bilaabo maanta iyo maalmihii lasoo dhaafayba ma ogolaan doono, laga bilaabo maalinkan ismagacaabay oo aan isku magacaabay gudoomiyaha fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed qaybtiisa anshaxa, ma ogolaan doono cid kasta oo rabta in ay ku xadgudubto anshaxa fanka Soomaaliyeed. waxaanu rabnaa in aan soo nooleeyo hiddihii iyo asluubtii uu lahaa fankeenii Soomaaliyeed iyo qiimihii uu ku lahaa bulshada caalamka dhexdiisa. marka sidaa darteed fanaaniinta ku hoolan heesaha anshax darada ama issoo qaabinaya markay yihiin qaybta dumarka oo ayagoo qaaban oo coradooda aad usoo bandhigaya ay soo qaadayaan heesaha, lama ogolaan doono. maxaa yeelay waxaan u magacaabay guddi xer ilaalinta anshaxa la yiraahdo, waxaana lagu soo oogi doonaa dacwad ka dhan ah fankooda. kadibna maxkamadda fanka anshaxa qaabilsan ayaa la saari doonaa, xukunka ay muteestaanna waa la saari doonaa. marka sidaa darteed caawa waxay xer ilaalinta anshaxa fanka Soomaaliyeed dacwad ku soo oogeen, haba la yaabee, heestii dhoolatus ee Axmed Rasta. qodobada lagu soo oogayne waad nala daawateen oo waad aragteen. marka sidaas la ajligeed markaan loo fariistay oo aan ka eegnay dhan kastana ka fiirinay heesta dhoolatus ee uu ku luqeynayo fanaanka Axmed Rasta, falanqeennayna baarnay qodobadii ay xer ilaalinta anshaxa fanka Soomaaliyeed ay ku soo oogtay heesta dhoolatus ee uu ku luqeynayo Axmed Rasta. markaan fiirinay ka eegnay dhan kasto iyo qaab walbo sifaha fanka Soomaaliyeedna aan ka eegnay, fanaanka Axmed Rasta waxaa ku caddaatay dacwaddii lagu soo oogay ee ay ku soo oogtay xer ilaalinta anshaxa fanka Soomaaliyeed. Axmed Rasta waxaa ku caddaatay in uu qalad ka galay fanka Soomaaliyeed kadib markii uu ciyaarsiiyey ciyaaryahan ka baxsan fanka. marka sidaa darteed maxkamadda anshaxa fanka Soomaaliyeed oo aan aniga gudoomiyaha ka ahay, Axmed Rasta waxaan ku xukumay laga bilaabo maantu ay taariikhdu tahay 28 bisha Maarso, Axmed Rasta in uusan hees cusub soo saari karin ilaa iyo muddo 3 bilood laga bilaabo xukunka markuu dhacay. Axmed Rasta na in uu bixiyo lacag gaaraysa $500 Mareykanka oo lagu ganaaxay kuna ganaaxeen guddiga xer ilaalinta anshaxa fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed. laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 28 bisha 3 sanada 2009, maxkamadda waxay ku xukuntay Axmed Rasta in uu hees cusub soo qaadi karin muddo 3 bilood, aanan wax hees cusub ah uu soo qaadi karin. haddii uu ku xadgudbo soo qaadana hees cusub 3 bilood inta xukunka maxkamadda ugu dhammaanaya ka hor, hadduu soo qaado hees, wuxuu ku muteysan doonaa ganaax hor leh iyo xukun hor leh. waxaana
laga doonayaa Axmed Rasta in uu ku bixiyo lacagta lagu ganaaxay ee ku ganaaxday xir ilaalinta anshaxa fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed lacagta oo ah $500 Mareykanka in uu ku bixiyo isla muddada uu xukunkiisu yahay 3 bilood gudahooda waa in uu ku bixiyaa $500 Mareykanka haddii uu ku bixin lacagtaas muddadii loogu talagalayna ay kordhi doonto ganaax lacageed oo intaa ka sii badanna dusha loo saari doono marka maxkamadda maanta aan u fariisanay dacwo ciqaabeedkii loo heystay Axmed Rasta meeshaas ayay noogu xiran tahay fiidiyoga nacaawa intaas ayuu igaga eg yahay haddii aad ka heshid fiidiyogan please like saar share dheh comment ka bixi haddii aad ku cusub tahay YouTube channel-keygana please subscribe dheh maxaa yeelay wax lacaga ma waa bilaash marka ma ahan inaad iga baqiisho waxaan lacag lagaaga qaadaynin oo bilaash ah fartaada kaliya ku riix calaamadda gaduudan isku dhamaad kadibna wax lacagna kaaga ma bixayso anigana taas way i farxad gelinaysaa wayna i dhiirigelinaysaa please hadda saa subscribe asxaabteeda ku xiran YouTube channel-keygana aad baad u mahadsantihiin tan iyo video midkan lamida intaan ku kulmi doonno habeen dambe hadduu allaha awoodda leh uu ogolaado waxaan idinkaga tegayaa ammaana allah